guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga rasmiga ah ay dalka ka qabsoomayso doorashada madaxtinimadu. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sidaasi shaaciyay, waxaana uu sheegay in 13 bisha 11aad 2017 ee sanadkan ay ku guda jirno dalka looga dareeri doono doorashada madaxtinimada. Cabdiqaadir Iimaan Warsame, gudoomiyaha guddida tumushinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ugu horeyn arrimahaasi ka hadlaya, ayaa yiri واساسونو ديار كورونا ودورشدي سكجولكيدي aynu sida ku dhameystirano insha Allah bismillaahir kariim maanta oo sabtiya oo ay bishu tahay 10 waxaanu gudbinaynaa anagoo ka faa'iideysanayna fursadan warqadii cayimaada maalinta doorashadu dhacayso maalintaas oo ah 13 November 2017 maalin isniina ku beegan ayaa insha Allah bismillaahir kariim doorashada loo dareeri doona oo ay noo dhici doonta. Wassalaamu calaykum. Nagiib Cabdilaahi Colaad, telefishinka caalamiga ee Bulsha TV magaalada Hargeysa.